السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا ليل سو دوادا muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku soo gudbiyo afar ganacsi aad u xiiso badan oo ku soo arkay magaalada Hargeysa oo aan sanadkan tagay sidoo kale waxaan rajeynayaa dad badan oo qurbaha jooga iyo dad badan oo wadankii tagin inay ogaadaan inay horumar badan dalkii ka jiro gaar ahaan ma aragtay meelaha baahiyo kala duwan ay jiraan ganacsiyo buuxiyay xaqiiqatan ganacsiyadan waxaan u ahaa macmiil waan aad baan uga helay qaababka ay u shaqeeyaan iyo baahiyaha ay xaliyeen iyo caqabadaha ma aragtay ay inoo fududeeyeen iyo adeegyada ay macaamiishooda u soo gudbiyeen ganacsiyadan waxaan dhihi karaa waa kuwa aan anigu ka shakhsi ahaan aan macmiil u ahaa aadna u xiiso badnaa sidoo kale haddaad ka adeegatay qaybta hoose ee commentiga igu soo qor waxyaalaha aad ka iibsatid ganacsiga koowaad walaalayaal aan rabnay in muuqaalkan ku xusno aan Hargeysa ku soo arkay sanadkan 2020 ka shakhsi ahaan markasta safro oo dalka aada waxa koow ka ahaa oo aad xiiso geliyay ku soo arkay shirkad la dhaho Luxury Perfumes amse shirkad ganacsiyeed cadarada samayso oo dalka gudihiisa ku samaysa xaqiiqatan marar badan ka qurbaha ka tagay dalka ku laabanayo waxaan ilaawi jiray inaan cadarada marka jawiga tropicalka kulul ku haboon oo kale amse tayada leh amse standardka caalamka oo kale inaan wadankii inaan sii gato oo aan gadan baan marka arkood wadanka gudihiisa tagi jiray haddii aad istiraahadid wadanka gudahiisa cadarada ka gadana badi kama helisid kuwa aad ku wanaagsan ama sidoo kale kuwa kooban oo international hadda ka heshidna waa qiimo dhabal ah oo qaali ah dalka gudihiisa laga gadaya haddaba shirkad iyadoo cadarkii aad u baahnayd isla markiiba ku sameynaysa oo cadaro badan oo cajiib oo adduunka ma aragtay qaali ka ah aan ku arkay sida Tom Ford oo kale maxay ahayday tobacco vanille cadarka la dhaho oo kale cadarada Versace oo kale cadarada 1 million oo kale cadaro badan oo internationalka aad looga isticmaalo niche products la dhaho amse high ma aragtay ama colognes cadaro kala duwan oo aad xaqiiqatan u tayo badan ay shirkadani kuwa u dhigmo oo isla urti leh oo isla xaqiiqatan tayadii wax ku dhow leh ay kugu sameynayaan muddo 20 daqiiqo ka yar ganacsigani aad buu xiiso geliyay xaqiiqatan waan ka soo adeegtay cadarka tobacco vanille oo aad u jeclaa Tom Ford ayaan ka soo gatay sidoo kale cadaro kale ayaan rabay inaan insha Allah cadar kale aan rabay inaan ka gato oo hadda magaciisa igu maqan balse shaashada idinku soo sawiri doono marka shirkadan Luxury Perfumes xaqiiqatan cadaradii internationalka oo dhan caalamka laga isticmaali jiray iyagoo ah qaab oils ah oo saliid iyo aad marsanaysid iyo iyagoo ah qaab parfum ah oo isku buufinaysid labadiiba dalka gudihiisa ay qiimo kooban oo $15 $20 ilaa $40 inta u dhaxaysa ay kugu sameynayaan isla markiiba kugu diyaarinayaan oo adigoo ma aragtay marka gacantada lagaga soo saaray oo cadarkii aad u udgoon ayaa lagu siinaya xaqiiqatan marka ganacsiyada ugu xiiso badan aan sanadkan Hargeysa ku soo arkay waxa kamid ah shirkadda Luxury Perfumes ay kamid ahayd ganacsi kale oo aan isagana sidoo kale aan macmiil u ahaa xaqiiqatan oo aad iyo aad uga soo helay waxa kamid ahaa shirkad hadda Hargeysa meelo badan ka jirta koonayaasheeda ama degmooyinkeeda kala duwan oo loo yaqaan Hilibsan shirkadaasi xaafad ahaan ka guri ahaan macmiil baan u ahaa intaan Hargeysa joogay waa shirkad maxay ahayd butcher shop waxa loo yaqaan ama meat shop oo kale oo ku takhasustay in hilibka noocyadiisa kala duwan ay gado iyadoo u gadaysa qaab caafimaadka iyo tayada iyo nadaafadda kor loo qaaday oo maxay ahayd hilibkaas noocyo kala duwan leh hilibkeeni caadiga ah geelaha oo noocyo kala duwan loo diyaariyay hilibkii ariga hilibkii lo'da kalluunkii digaagii ayu nooc hilibka nooca doonaysid ayaad maalintii subaxii ilaa habeenkii ayaad shirkadda ka helaysaa xaqiiqatan shirkadaas waxyaalaha aan ugu adeegan jiray waxa kamid ahaa inaan haddaan habeenkii u baahdo aan ka helayo hilib diyaar ah oo moorgaraysan oo maanta fresh ah oo la qalay sidoo kale qudaarta oo kale ay ku dhinac gadaan grocery-ga waxyaalaha jikadu u baahan tahay oo kale sidoo kale ay gadaan maxay ahayd subagyadii iyo oodkicii ama muqmadii hadba saad u taqaanid ee dhaqanka Soomaaliga aan lahayn oo kale marka lambar yar waxay leeyihiin xataa short code ah oo
hadda ma xasuusto laakiin aad wacaysid oo deliveryga gurigaaga lagu keenayo haddaad tahay macmiil u baahan in gurigiisa lagu keeno marka shirkadda Hilibsan shirkad xiiso badan ayaa ahayd xaqiiqatan aan kusoo arkay Hargeysa aan aad uga adeegan jiray oo aan ka gadan jiray muqamada hilibyada noocyadooda kala duwan qudaarada sida strawberry-ga oo kale sida vegetables oo kala duwan oo kale sida cuntada gan kale misirta iyo digirta iyo waxyaalo badan ayaad gudaheeda ka helaysaa waana shirkad yani nadaafadeeda wax duqsi ama dhex duulayo maartay wax male wasakha gudaheeda ka muuqato aad yani sida UK ama qurbaha kale meelaha branch-deeda aad uga adeeganaysid dabcan branch-gooda jigjiga yar ayaan ka adeegan jiray iyo New Hargeysa labadaba dhalinyaro akhyaar ay ugu soo dhaweyn jiray oo kamid ah daawadayaasha kanaalka aad iyo aad baan salaamay dad muuqaalkan aad daawanaysaan shirkadaasi waxay ahayd ganacsi xiiso badan aan Hargeysa ku soo arkay muuqaalkan aad kugu socdo aad leedahay warbixin iyo xog cusub ayaad ka heshay fadlan ha ilaawin inaad like saartid oo ku caawisid dad badan oo si gaaro insha Allah intaas muuqaalka kaga qayb qaadan kartaa taasi waa codsi ka daawadayaasha ahaan sidoo kale walaalayaal shirkadda saddexaad ee muhiimka inaan xuso aan macaamilka u ahaa aad ka xiiso badan aan filay in badan oo reer Hargeysa macaamil ay u yihiin waa shirkad la dhaho Asli Mills shirkaddan waxay la mid tahay shirkadaha adduunyada ka jira ee health shops la dhaho ama se dukaamada healthy foods oo kale dukaanada gada waxyaalaha mid caafimaadka ku saabsan ha noqoto isqurxinta ha noqoto waxyaalaha fitamiinaadka supplementiyada ha noqoto cuntooyinka wanaagsan ee nutritionka ah waa shirkad yani waxyaalo badan hidiye dhaqanka oo kale waa shirkad yani xaqiiqatan aan macaamiil u ahaa oo ka iibsan jiray badeecooyin kala duwan oo aad iyo aad u tayo fiican shirkadani waa shirkadaha ugu saxmadda badan uguna mashquulka badan xaqiiqatan oo markaad ka adeeganaysid aad ka sii walwalaysid talo xageed ka istaagi doontaa ama xagee baa laga saaf gareynayaa waa shirkadaha aan isleeyahay shirkadaha ugu xiiso badnaa ee aan Hargeysa kusoo arkay ee kamid ahayd waxyaalaha shirkaddan aan ka gadan jiray waxaa kamid ahaa subaga sixinta oo fresh ah oo isaga iyo ari ah isaga iyo lo ah oo hadda la soo sameeyay oo aad iyo aad u udgoon xaqiiqatan oo ka yaabisid waxyaalahan ka heli jiray waxaa kamid ahaa Ethiopian xabad soodayaasha adduunka ugu qiimaha badan ee caalamka laga isticmaalo waa xabad soodaha Ethiopia lagu soo sameeyay Ethiopian black seed ayaa la dhahaa aad baa adduunka looga isticmaalo waa xabad sooda aad kulul oo qofka ma aragtay waxyaalo badan caafimaad badan uu ka helayo waana de sida diinteenu sheegtay yani gabowga iyo geerida mooyaan wax kasta daawo ka yahay waxyaalaha shirkaddan ay gado waxa kamid ah cuntooyinkii oo kala duwan oo dabiiciga ahaa ee dalkeena ka soo go'i jiray waxyaalaha ay gato waxa kamid ah adeerkaysi dumar badan inay ka iibsanayaan waxyaalo la isku qurxiyo oo dabiici ah oo chemical ahayn sida budo avocado ka samaysan oo kale sida maxay ahayday bariis la shiiday oo kale sida maxay ahayday liin macaan la shiiday oo kale sida maxay ahayday Allah haduu ilaahay ku roon yahay lowski iyo noocyo kala duwan loo shiiday waxyaalahaas oo gabdhuhu intay iibsadaan dabcan qaab qurux oo isku qurxin oo kale ay u qaadan jireen oo kale biyaha rose water oo kale olive oil ki oo kale saladihi kala duwana loosaski kala duwana almond wax kasta yani cuntooyinkii dalka bariisyadii wanaagsana dema soo koobi karo waxaan ka heli jiray waxyaalo badan oo xaqiiqatan ka xaafad ahaan ka adeegan jirnay ha noqoto qaybta dumarka ha noqoto qaybta ma aragtay waxyaalaha midaawaadka ha noqoto waxa dhaqanka iyo hidaha ah haddaad u baahan tahay gadfeedii hore ee timaha badan la gelin jiray haddaad u baahan tahay koor geela la sudo haddaad u baahan tahay maxay ahaday warankii iyo waxyaalihii wax kasta hidaha iyo dhaqana shirkaddan waad ka helaysaa marka Hilibsan waxaan leeyahay Asli Mills shirkadaha ugu xiisaha badan ayaa kamid ah inaan Hargeysa ku soo arkay waxaan ku soo gabagabeynayna ganacsiga afaraad aan filayo inaan muuqaaladeena hore ku xusnay oo ah qaabka loo sameeyo cafeteria casri ah muuqaalkaas halka sare ayaad ku dhufan kartaan ayaan idin soo gelinaya cafeteriyaasha kamid qofka ma aragtay markuu magaalo weyn yimaado wuxuu u baahan yahay cafeteria jawigiisu wanaagsan yahay AC le qabow wireless internet aad ka heli kartid oo kale cuntooyin badan oo international iyo gudahaba aad ka heli kartid cafeteria oo aad VIP u ahaa Mocha cafeteria la dhahaa wuxuu ku yaalaa jigjiga yar waan xusaya sababta wuxuu ahaa modern cafeteria ayuu ahaa xaqiiqatan waxaan ka heli jiray waxyaalahan aad ku iibsan jiray waxa kamid ah chicken sandwich oo toast aad u macaan xaqiiqatan $3 bar la siin jiray waxaad ka helaysaa
يعني جوي معان AC oo daaran internet fast ah miiska ayaad soo fadhiisanaysaa badhan yar ayaad taamanaysaa ka bacdi miiska isla markaa lagu imaanaya marka dalabkaaga lagu keeno receipt go'an oo qiimaha ay kugu qoran yahay adan ka walwalin imsaad cuntay ama imsaad baa lagu keenaya marka Mocha Cafe ganacsiyada xiisaha badna aan ku soo arkay waana waxyaalaha ugu faa'iidada badan bay Hargeysa kamid ahayd cafeteriyaasha aadka u nadiifka ah ee VIP-ga ah qiimo يعني yara sare oo qaaliyana way qaadaan oo maxay ahayd shaqaalahooda iyo waxoodana uu kooban yahay marka waxaan isleeyahay waa ganacsiyada ugu faa'iidada badan Mocha Cafeteria iyo qaybta kale ku dhawan Safaraan in ahayd baan filayaa wiilal aad u wanaagsan aad isu dhaweyn jiray ayaa joogay ma sha Allah waa ganacsiyada ugu xiisaha badan aan wadanka ku soo arkay cafeteria VIP ah oo dadku isugu yimaadaan oo ku nastaan oo maxay ahayd waxyaalo nadiif ah oo tayo badan aad ka helaysid وجناعسي أفراد وحي صاحبنا أيها ما أنت أفرتها جناعسي أي ربعنا إن شاء الله مقال كان إنكسو كوبنو sidoo kale warbixintii greenhouse ka qiimaha lagu sameeyay injineerada ayaa safar ku maqan ilaa hadda xogteeda dhameystiran ma helin markan helo ayaan muuqaalka xiga ka sameyn doonaa insha Allah wixii fariina qaybta commentiga aad igu dhaafaysan muuqaalkan fadlan hilaw inaad like saartid sidoo kale nagu soo biirtid subscribe aad kanaalka saartid walaalkii Sakriya Cabdullaahi Cali assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh